بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة هو عبد الله بن جدعان، وطفق يعمل في التجارة فدرت عليه الخير الوفير والمال الكثير. أحبتي في الله، وحان كسو جرني كتاب كان صور من حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وحان سوغرني درس بقل يسديدات كتاب كان، وحان دحدك جرني صحابي الأورنجري صهيب بن سنان الرومي قصديسة. waxay noo maraysay isagoo heshiis la galay nin la dhihi jiray cabdullaahi bni judcaan, kadibna bilaabay inuu shaqaysto magaalada maka, uu ka shaqaysto aadna ooga faa'iiday shaqadii uu shaqaynayay. hayra anna suhayban, intaana darsi u gelin kii shalay qaybihii ugu dambeeyey, huma utiixat ilfursatu lisuhaybin fawallaa haariban fawallaa wuu jeestay haariban xaal uu yahay mid cararayo, oo wuxuu ka cararayay min riqi asyaadihi. marka kelimadan fawallaa waa jeesasho ama leexasho. hayra anna suhayban, saxaabiga la odhanayay suhayb, lam tunsihi ma aynan hilmaansinin tijaaratuhu ganacsigiisa iyo wa makaasibuhu shaqaysigii uu shaqaysanayay, xadiitha alkaahini wadaadkii warkiisa ma hilmaansinin, kaahinkii annasraaniyi nasraaniga loo nisbeeyo kirishtaanka ahaa. ma uusan hilmaansinin warkii wadaadkaas uu ka maqlay, shaqadan iyo mashquulkan uu galay ma aynan ilowsinin. fa kaana wuxuu ahaa suhayb kullamaa mara markuu soo maro kalaamuhu, wadaadkaas hadalkii uu yidhi markay soo marto bikhaatirihi laabtiisa, bikhaatirihi fikirkiisa iyo maankiisa markay ku soo dhacdo ay soo marto, yusaa'ilu wuu weydiinayay nafsahu nafsadiisa, fii lahfatin isagoo ku sugan jeceel, fii lahfatin isagoo cishqi ku sugan ayuu isweydiin jiray, mataa yakuunu daalika, war wadaadkaas ninkuu sheegayey nabigii wuu soo baxaya uu laha goormuu imaan doonaa, saasuu isweydiinay. mar kastay maankiisa ku soo dhacdaba wadaadkii warkiisa, wuxuu isdhahaya war goormo wadaadkaas nabigaas soo bixi doonaaw. wamaa huwa xaalkii shaaniga ma ahaanin ilaa qaliilun in yar ubaa ka soo wareegatay, xataa jaa'ahu ljawaabu, ilaa jawaabtii ay timid oy xag alla ka timid. fa fii daati yowmin, maalin maalmaha ka mid a, caada suhaybun, suhayb wuu soo laabtay ilaa makata ayuu u soo laabtay, min ixdaa raxlaatihi, safaraduu safrayay mid ka miduuna ka soo noqday. faqiila lahu, waxaa lagu yidhi markuu maka yimid, ilaan ganacsatu ahaayo meeluu ganacsi u aaday buu ka soo noqday, markaasaa lagu yidhi inna muxameda bni cabdillaah, muxamedkii ina cabdullaahi ahaa, qad bucitha waa la soo diray oo nabi baa laga dhigay. wa qaama wuuna istaagay muxamed yadcuu xaalo uu u yeerayo annaasa dadka ila aliimaani billaahi waxdah, allah keligiis oo la rumeeyo ayuu ugu yeerayaa. wayaxuduhum, dadka wuxuu ku dhiirigelinayaa cala alcadli, cadaalad iyo walixsaani, in la isu ixsaan sameeyo. wayanhaahum, wuxuu dadka ka reebayaa can ilfaxshaa'i, xumaan iyo walmunkari, munkar. can ilfaxshaa'i, dunuubta foosha xun sida zinada iyo wixii lamidka iyo qowmuluud ficilkoodii kale, iyo walmunkari, waxyaabahay shareecada inkirtay. waa isku mid wey, alfaxshaa walmunkar waa isku mid. faxshaa ayaa khaas ah, munkarka caam ah. marka munkar haddii xitaa faxshaaga wuu soo gelayaa, laakiin gooni waxaa loogu saaray qubxigiisa iyo foolxumadiisa gooni loogu saaray. sidaa daraaddeed waxaa la yihahdaa cadfu alcaami cala alkhaas baa la yihahdaa. faqaala, wuxuu yidhi ninkii la dhihi jiray suhayb, alaysa soomahan huwa muxamed alladii kii yulaqabuunahu ay ugu naaneysayeen carab iyo quraysh bilamiini, muxamedulamiin kay dhihi jireen soomahan. muxamedyada way badan yihiin, muxamedka waa la soo diray aad leedihiin, kii muxamedulamiin ay ugu naaneysi jireen quraysh soomaahan. faqiila lahu, waxaa lagu yidhi balaa haa, nacam isaga wey.
faqaala wuxuu yidhi wa ayna makaanuhu booskiisi waa xagge halkuu degan yahay magaalada ka degan yahay faqiila lahu waxaa lagu yidhi fii daari alarqam bini abilarqam ninkaas la yidhaahdo arqam bini abilarqam gurigiisa ayuu joogaa cinda safaa buurta safa la yidhahdo agteedina ku yaalla gurigaas ninkaas gurigiisi ayuu ku dhuuman hayaayo meeshaasuu dacwada si qarsoodi oga fidinayaa baa lagu yidhi walaakin waxaa lagu yidhi xadaari digtoonow oo iska jir min an yaraaka inuu ku arko axadun qof oo min qurayshin quraysh ka mid a inuu ku arko oo uu ku ogaado iska jir ayaa lagu yidhi maxaa yeelay fa in ra-owka hadday quraysh ku arkaan facaluu bika waxay kugu samaynayaan dhibkaa iyo dhibkaa wa facaluu way samaynayaan waxa karbaash iyo haraanti iyo feer iyo in lagu bereeyo ayay samaynayaan wey wa anta adigu rajulun nin baa tahay qariibun oon la garanaynin laa casabiyata wax qabiil la yidhaahdo laka adiga kuuma sugnaanin taxmiika ku ilaalinayso oo quraysh kaa ilaalinayso walaa cashiirata qaraabana cindaka agtaadi ma ahaanin qaraabana ma lihid cashiiradaasoo tansuruka kuu hiiliso qabiilkaadana meeshan ma degano oo halkaa ciraaq baad ka timid wax qaraabo hoose oo meeshan kuu jooga ma lahan qurayshna ninkay maqasho inuu magac maxamed soo qaaday ama xaggiisa u socday way dilaysaa marka niyow isilaali baa la yidhi ha ku khaldamin yaa lagu dilin wey madaa suhaybun suhayb wuu baxay ilaa daari alarqam ayuu aaday xadiran xaal uu yahay mid digtoon oo cabsanayo yaltafitu dhinacyada fifiirinayo oo muxuu ahaaye marba dhinac iska eegayo ilaa waa loo digay falamaa balaqa markuu gaaray daartii uu gaaray arqam bin abilarqam gurigiisa markuu gaaray wajada wuxuu helay cinda albaabi ilbaabka agtiisa camaara bna yaasir ayuu ka helay saxaabiga la yidhaahdo wa kaana wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo suhayb yacrifu mid garto hu camaar min qablu horay buu u garan jiray oo camaar horey bay isu yaqiineen fataradada wuu taraduday ninka la yidhaahdo suhayb laxdatan muddo ayuu taraduday taradud waxaa weye wuu labalabeeyey war ninka ma la hadasha ma ka aamusta ma iska noqotaa taladii baa laba ku noqotay fataradada wuu laba shakiyey ama wuu muxuu ahaaye taraduday wuu labalabeeyey laxdatan zaman uma danaa minhu wuu is adkeeyo wuu u dhowaaday oo wuxuu isleeyay war ninkan hadalash ama uu ku dilaabo wa qaala wuxuu yidhi suhayb baa odhanaye maa turiidu maxaad doonaysaa yaa camaarow halkan maxaa ku keenay maxaad doonaysaa maxaad ka haysaa waa su-aal khaldan soomaal ilaa ninka imaaday ninka loo imaaday su-aashan waxaa iska leh ninka loo imaaday baa ay ahayd inuu yidhah war maxaad doonaysaa laakiin adigii socday qofkaad u timid inaad dhahda maxaad doonaysay cabsidaa keenaysa iyo labacleenta macnaha faqaala camaaru wuxuu yidhi bal maa turiidu anta anigu iska daaya adigu maxaad doonaysa adaa socdoo ii imaaday faqaala suhayb wuxuu yidhi aradtu waxaan doonayaa an adkhula inaan u galo calaa hada arajuli ninkan inaan u galo nabi ma dhahayo wuu ka cabsanayaa waan islaami rabaa ma dhahayo wuu baqahiyaa si yaro dadban ninkan baan doonayaa wir inaan arko oo fa asmaca aan maqlo minhu xaggiisa maa yaquulu waxa uu akhrinayo uu odhanayo faqaala camaarun camaarna wuxuu yidhi wa ana uriidu daalika aniguna gelitaankaas baan doonaya aydan sidoo kale war naftaydu waan baqahayaayo anigu naftaydaaba doonahayo inaan galee bal ina keen waa la kala shakisnaa markii hore laakiin waa la isfahmay faqaala suhaybun wuxuu yidhi idan nadkhul aynu galno macan wadajir aynu u galno calaa barakati illaah barakada ilaahina aynu ku galno oo nabigu u galna calayhi salaatu wasalaam dakhala wuu galay suhayb binu sinaan arruumiy iyo wa camaaru bnu yaasir calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama bay u galeen wastamaca way dhegaysteen ilaa maa yaquulu waxa nabigu akhrinayay ee waxyi iyo diin ah fa ashraqa wuu ifay oo wuu dhalaalay nuuruliimaani iimaanka nuurkiisibaa ka ifay fii sadrayhimaa labadoodii xabad labadoodii laab ayuu ka ifay lianna diinta iyo xaqa aad baranaysa qalbiguu galaa qalbiguuna ifiyaa afaman sharaxa allaahu sadrahu lilislaam fa huwa calaa nuurin min rabbih qur-aankaa tilmaamaya iimaankii baa ka iftiimay qalbigooda bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilm cilmiga iyo khayrka qalbigu gala lidaalika baa suubanahu sala allahu caleyh wasalam uu sheegay
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قلبك الله نجاجي. وتسابق ويترتمين أو ويؤبرتمين في مد أيديهما قعمه ذي إني تاغان إليه الصوبان هاي تاغان وشهدا قعنتي تاغين إن إسلامان درتير وشهدا وحيقرا لبضاضبا ألا إله ألا حق لو عابد إنو سنجرين إلا الله إله حق ما هنا الله كلو حق لو عابد إنو سنجرين أي قرين وأن محمدا النبي لما هذين بدينا عبده الله دونكي سينو يهي ورسوله الله رسولك صادر سدى إنو يهي بيقرين وأمضيا ويتجيين ويدميين صحابة يومهما مال كوذا دمان عنده صوبنا اكتسبه كدميين صحابة يومهما صحابة وطوال ديرك مال كوذي أي دميين عنده صوبنا اكتسا أي كدميين ينهلان حالة كبي عبيان ينهلان حالة أيهين لبدر دورانيو darduur waxaa la yidhahdaa ama rakaadasho geela ninka geelada garanay geela marka hore marka la waraabiyo waa dhib badan sida loodoo kale ma isagoo wax u dhiman yihiin buu ka baxayaa biyihi banaankaas xoogaa lagu horeeyaa lagu nasinayaa marka la bixi rabo kadib haddana waa la soo celinayaa mar labaad buu ku noqonayaa oo muxuu ahay sahay qaadanaya nahliga marka waxaa weeye mar labaadkan rakaadasho ama darduurid Soomaali kalena inay leedahay iska suuragal من هديه صوبنا هديه سبي كدر دورنا ين ومربكو نقنا ين كفائدة سنين وينعمان وينعمي سنين بصحبته صوبنا الله صاحب دي سيكون نعمي سنين نعمة كون نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن اللجوكت صاحب النقطة ديوان كصحابة أتقشة بلدتك وهو الرئي أي نقطة من كان ولما أقبل الليل هبينك مركو صاقع بلي أما هبينك أودمي oo wahadaat alxarakatu xarakadii dhaqdhaqaaqi ay jaanti shibtiri wax socdo aan lahayn xarakadii dhamaatay kharaja way soo baxeen min cindihi suubanaha agtiisii bay ka soo baxeen taxta junxi leyli taxta junxi dhalaami mugdiga garabkiisa hoostiisii iyagoo ku gabanaya ay soo baxeen mugdiga markii oo habeenkii uu mugdi noqday oo jaanta la dhigay oo madow uu dhulka noqday أي آير صوت دونتين أي صوت بحين تحت جنح الليل الظلام بانده لها مقدقة إيو جنحي واسكو معنو مركا مقدقة قرب كيسا هوستي سبا يكون دونتين ويكدوسين وقد حمل إيضا أوحن باري وقد حال حمل أوحن باري كل أركو منهما اللبضوضة كمدا من النور كحقيسا في صدره اللابتي سأو كحن باري ما علم إيو النور أوحن باري يكفي كفلنبا لإضاءة الدنيا أدوية فنتيضا بأسرها قبي أهان تيضا بأسرها بأجمعها الدنيا أردن علم إفتينيو إيغو برتيبا يكسو تغن ماشي نوال بابا علم بدن صوبرت تحمل أوحن باري سهيب صحابي ليرادو نصيبه قيبتي سيبو قاتيو تنك أوريتي oo min adaa quraysh dhibkii quraysh ay saxaabada dhibaysay isagana dadkaasu kamid ahayo dadkii ugu horeeyay ilaan soo hor islaamay weeye qaybtiisu dhabarka u ritay maca bilaal iyo Ammaar ibn Yaasir iyo Sumayya iyo Khabaab ibn al-Arat saxaabadaasi oo dadkii ugu hor islaam horeeyay ayuu asna ku jiray dhibkay iyaga tunka u riteen ayuu asna qaybtiisa qaatay dhabarku u ritay bilaal wad garanaysaan waan mari doona insha Allah ama waa soo marnaba garan maayo Ammaar ibn Yaasir iyo Sumayya oo hooyadii labadaba waa dadkii ugu horeeyay oo Ilaahay dartiis loo dilay Sumayya waa qofkii ugu horeeyay ee Ilaahay dartiis loo dilay gabar bay la soco waa mujaahidad qofkii ugu horeeyo oo Allah dartiis loo dilay Sumayyadan ay ahayd waa Ammaar hooyadii waa family oo Ilaahay dartiis loo baabiyay Ammaar iyo muxuu ahaaye aabihiis iyo Yaasirka iyo Sumayya iyo kulli waa dadkii Quraysh ay baabiyeen silac bay u dileen wa Khabaab ibn al-Arat iyo wa ghayrihim kuwa kale oo min asharaati mu'miniinta
kumanaankii kun ee soo islaamay, kumanaan weliba gaarina 10 kun oo mu'miniin ah ayay 10 qof oo mu'miniin ah ayay ka mid ahaayeen oo la dhibaateeyey. Sumaya ninkii dilay bal la soo baaro iyo qaabku u dilay su'aalahayna isweydiin jireen way ku jirtay. Waqaasa uu u dhabar adeegay ninka la yiraahdo Suhayb min nakaali Quraysh biijinteeda iyo ciqaabkeedu. Nakaalku waa cabsigelinta iyo biijinta iyo cadaabka Quraysh ay ku haysay maabuu u dhabar adeegay. low nazala haddii uu ku degi lahaa bijabalin buur hadduu ku degi lahaa lahaddahu dumin lahaw. wax buur haddii lagu sameeyo xataa buurta dumin lahaa oo dhib aba isaga lagu sameeyey wuuna u dhabar adeegay. fatalaqa wuu la kulmay daalika arrinkaas ciqaabta iyo dhibaataynta ah kullahu dhammaantiisa binafsi naf buu kula kulmay oo uu ku qaabilay naftaasoo mutma'innatin degan, naftaasoo saabiratin sabrayso allah dartiisa u sabrayso. lianna qofka mar hadduu hadaf leey la kari maayo, wax kastoo lagu sameeyo ujeeddadiisu lagama leexin karo. liannahu saxaabigani Suhayb kaana wuxuu ahaa yaclamu mid garanayo anna dariiqa aljannati jannada wadadeeda maxfuufun in lagu owday, in lagu laandeeray bilmakaarihi waxay nafta dhibsato. ilaan xadiiska nabiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ahaa xufat iljannatu bilmakaarih. jannada waxaa lagu daah looga dhigo lagu wareejiyey lagu ooday waxay nafta dhibsanayso. naartana waxaa daah looga dhigay bishahawaat waxay nafta jeceshahay. marka weliga waxay nafta ku raaxaysanayso jecesha haddaad aragtahay tuhun qaad waxyaabaa naarta lagu galow. waxay nafta dhibsanayso diidanta haddaad aragtana waa waxa jannada lagu galay inta badan ku qasab. marka ninkan wuxuu ogaa nafta jannada waxa lagu daahay inay tahay waxay nafta dhibsanayso. halka haynoo joogo. hada wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullah.